jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Zambia ayaa waxay isugu timid kulan ballaaran oo ay ugu tacsiyeynayaan Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax oo 15 bishan nagar qabo hubaysan uu ku dilay gudaha masaajid ku yaala magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. kulankan oo ahaa mid tacsiye ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeeyaan culimadu, waxaana kulanka ugu horeyn hadallo ka jeediyay qaar ka mid ah culimada jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Zambia, iyagoona si weyn uga tacsiyeeyay geeridii naxdinta iyo murugada lahayd ee ku timid eebaha u naxariistay Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax. hadalka culimada iyo aqoon-yahanada ayaa ahaa mid u badan tacsi, waxayna tilmaameen in Sheekh Cabdulqaadir lagu xusuusan doono fidinta diinta Islaamka iyo ka shaqeynta wanaagga. sidoo kalena waxay hadaladooda diiradda ku saarayeen sida ay uga xun yihiin falkii foosha xumaa ee loo geystay Sheekh Cabdulqaadir, iyagoona alla ka baryay in uu ka dulqaado dhibaatada haysata ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan midda lagu beegsanayo indhaha iyo caqliga bulshada oo ay culimaduna ka mid tahay. waxayna culimadu ugu baaqeen dadka Soomaaliyeed inay isugu yimaadaan kulan ballaaran oo ay uga arrinsanayaan sidii ay uga gudbi lahaayeen falalka noocan oo kale ah. inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax raxmatullaahi calayhi noloshiisa oo dhan wuxuu ku anfacay islaamka, geeridiisana insha Allah wuxuu ku anfacay islaamka oo ilaahay wuxuu ku kashifi doonaa dadkii Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax dilay waxa ay wadeen in ay tahay barnaamij lagu dagaalamayo diinta islaamka. Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax raxmatullaahi calayhi dowr xaar badan baa loo sameeyay dilkiisa. ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa in uu ka shaqeeyo dishay. ilaahay waxaan ka baryaynaa adduunka in uu ku kashifo, aakhirana cadaab uu kaga arsado. ilaahay waxaan ka baryaynaa isaga awood leh inuu soo dedejiyo ceebtooda iyo fadaxadooda. ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa dadka birmugeedada ah maalin walba masaajidda ugu soo dhacaya, guryaha ugu soo dhacaya, dariiqa ugu soo dhacaya oo leynaya, ilaahay subxaanahu wa ta'ala isaa qaban kara inuu ummadda ka qabto. waxaan tacsi tiiraanyala u dirayaa eheladii iyo dadkii uu ka geeriyooday sheekheennii sharafta badnaa, cilmiga badnaa, Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax Sheekh. ilaahay waxaan uga rajaynayaa sheekha inuu janno firdowsa ka waraabiyo, ee dadkii uu ka tagayna samir iyo iimaan u siiyo. sheekhu waa shahiiday, ilaahay idankiisna jannad firdowsa ayuu aaday, laakiin waxa uu inoo ka tegay innaga walwal tiro badan buu inoo ka tegay. sababtoo ah wax lala yaabo waxa ah waddankeennii aynu lahayn iyo waddan inoo ahaa dhibaatada ka socota maanta ee sida ay tahay markii la cabiro oo la fiiriyo la qiyaaso waa arrin aad walwal badan u leh. maantayto maalin aan isugu nimid taxsiin murugo leh ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba iyo ummadda islaamka ah. waxaan uga taxsiinaynaa geeridii qadarada ahayd ee ku timid Sheekh Cabdulqaadir Gacmay. ilaahay ha u naxariisto, ehelkiisiina samri iimaan ha ka siiyo, ummadda Soomaaliyeedna samri iimaan ha ka siiyo. anoo sida fursaddan ka faa'iidaysanaya yaa waxaan mas-uuliyiinta Soomaaliya meelay joogaanba ha noqoto kuwa federaalka iyo kuwa gobollada maamulada gaarka leh inay iska kaashadaan baaritaanada noocaas oo kale ah. inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. war dadkiinii waa dhammaaday. dad baa intaa ugaarsanahaya hadduu madax yahay iyo hadduu shiikh yahay intaba. war iswaansada oo dadkaas iska qabta ma idnaan garan waayen dadka laynahaya. nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiixa wuxuu leeyahay ilaahay weynayntiisa waxaa ka mid ah qof diinta islaamka ku ciraystay in la ixtiraamo, in la maamuso, in la karaameeyo. dilkii marka waa kasii xag jira. marka waxaan leenahay Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay ilaahay subhanahu waxaan ku sugannahay ducadii nabiga uu ka magangeli jiray ee ahayd walaa tajcal musiibatana fi diinina. waxaan ku sugannahay musiibada ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu nooga dhigo diinteena. marka waxaan maraynaa in culimadii lagu laayo masaajidka dhexdiisa in lagu laayo. sheekha dadka dilay waa dadka Uthman ibn Affan dilay iyo Ali ibn Abi Talib. aqliyadii lagu dilayna waa isla ayadii. dadkan waxa lagu dilay waa i'tiqaad, yaani kala maaha
وقف آمن سن إنه قفك آمن سنة إنه عامل بن أبي طالب كان تجي وأسقط صلاة الصبح الصعود الدليل أمبارح كان نوع آمن سنة يسقط سجودية إنه دير واحد ما ركض يبكوا كهري وإنك واحد يبكوا كهري وإنك ساس درت هذا وحنا وباغينا أمضى مسلمين تا خارهان الصومالي ده إنه يصير دقدقة أرنتا وحوق قبطان أمضنا دجال هذا الصعود ودجال إيديولوجيا أما عقيدة ساس درت هذا لأن يرد الشباب أمضى بدماري وباهنت وإن لها لويل كلوتو الأورنا يوحى كتير تجي سائنة كنت شوي كان نبغى أنا وشيء صلى الله عليه وسلم. سلمر كاسنا لينا يا ضدك علماء أهل خير كدعاء أهل حق ضدك عدالة يا خير كوجيرية كوا لينا يا الله وحيد فبشرهم بعذاب أليم. واحد يقول بشاري ساعة عذاب يعني حن يقول بشاري يعني سديت جر أنت وحقوق سوجاري دين تاني أما دعوة أما صحوة خدمة هذا يسوي هذا المسجد كجرا بيت كل يعني مساجد وحوي بيت كل تقي يسوي تقية أو تكنية إذا مرك وحنا ولا هاي شيخ وقول يستي كوا محن كرالاي إلهي أقص وينا عذاب يا جهنم أي محن كرا صدين إن جنا وحنا لنا هاي قوس كيسي المسلمين تأورن وحنا لنا هاي إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. علماء الله تطاعت رياضوك لبكو دي بينو هذا ولي معناها لا تاهينا oo aan warqtana yeynaan ku darin marka inaynu yaani waxa weeyaa wali halkii ka sii wadno dulmigi iyo isdilkii waxaan leenahay ilaahay jannada firdawsa ka waraabiyo eheladii qaraabadii ku geeriyoodeen sameeyay ma Allah ka siiyo dhamaantiin waxaan rajaynayaa insha Allah in ilaahay inaan iska gacan siino wixii dhibaato ay dadku hayaan dadkii dhibaatada geysto waa loo ogyahay insha Allah dadkii karta Allah naga dhigo ilaahay waxaan uga baryaynaa kitaabkiisa ilaahay inuu midigta ka siiyo dambigiisana dhawo visit kunoogu yimaayaan dhaweyd hadda waad garan kartaa ninka ilaa Puntland iyo Soomaaliya uga yimid Central Africa inuu yimaado oo diinta ka fidiyo waxaan filayaa inuu meelo ka fogna tagay oo uu ka fidiyay diinta qof walba oo Soomaaliya inuu isagu nafsadiisa difaaco rabo ama sheekh ahaw ama arday ahaw ama askari ahaw nin walba oo nafsadaada inay ilaashtaa rabo ilaahay raajicuun waxaan aad uga tiiraanyeysanahay geeridii naxdinta lahayd ee sheekheeni muftigeeni asalkii diinta iyo asaaskii diinta ahaa baan waxaan aad uga tiiraanyeysanahay geeridii naxdinta lahayd ee ku timid ee gacanta ka xaq dharayd ay dishay aad iyo aad waxaan uga tiiraanyeysnahay oo aadna uga xumahay dhimashadii ku timid sheekheeni sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halkaan waxaan ka soo gudbinaynaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan ka soo joogaan ardaydii sheekh oo ku geeriyooday eeradiisii khaas ahaan ayaan tacsiib gudbinaynaa anagu haddaan nahay jaaliyadda macnaha Soomaaliyeed oo degan Zambia in ummadda ay geerida macnaha u bareerto aysan cararin markii dhibaato ay dhacayso qofka saas oo kale markuu dhib geysto ummadda waa inay dhimasho diyaar u noqoto waayo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo sheegay qof marna oo soo gudbeyna geerida waxaa la doonayaa qofka safka dhexdiisa dadka ku dilayo inaan laga cararin oo xabad markii kor loo tuuro dadka aysan cararin oo qofkaas oo kale dhimashada intii loo bareero la qabto waayo qof bistoolada wata wuxuu dili karaa markay u bataan waa 10 qof ustaad Cabdulqaadir Nuur Faarax aad ayaan uga tacsiyeynaa isaga iyo eeladiisiba Cabdulqaadir Nuur Faarax kamuusan dhiman reer Puntland oo kaliya ama qoyskiisa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan guud ahaanba ummadda Islaamka ayuu ka dhintay iyadoo dilka Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax uu saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan Soomaaliya ayaa haddana wuxuu saameyn gaar ah ku yeeshay Soomaalida ku nool Zambia isagoona sheekhu bartamihii sanadkii la soo dhaafay ee 2012 booqasho ku yimid waddanka Zambia taasi oo ahayd booqashadii ugu dambeysay ee uu dalka dibadiisa ku aado waxayna Soomaalida Zambia noqonaysaa jaaliyadii ugu dambeysay ee uu sheekhu nado u jeediyo nimankaas waa طائفة منحرفة go'aan soo saar waxaan nahay dawladda oo markii hore waxa soo bartay Suudiga iyo niman hadda ardayda oo jaamacadda ku jira ayaa go'aankaas soo saaray maana waa daaro laakiin waxaan waa munxarifin كلمة واحدة وحن قال كذا رأي ما دام إحساس تهي دعوة أن ودنا
eebbaha u naxariisto sheekh cabdulqaadir nuur faarax سيد مصدر يونيفرسال تي في لوساكا